maanta dadka Soomaalida magaalada Jigjiga jooga iyo kuwa meel walba jooga dhageysanaya yani yaro fariin rabaa inaan u faro waxaan doonayaa inaan xabashida maanta wadooyinka dhan xalatay Jigjiga haysata aan yaro fariin u diro waxaan doonayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy inaan fariin yaro u diro dadka Soomaalida waxaan u farayaa waxaan idin sheegay wakaa maanta hadday ay tahay Jigjiga xabashulada wada iyo yaageedo annaga iskala Soomaalida ka baxda beeleedahay bal waxaan idin sheegay wakaa xabashi waa midii Itoobiya inta kale lagu dirtay ee boqolaalka sano la dirinayay Tigray iyo xabashi baa Amaara baan isku yiraahdaa labada qoys boo waxa waliga ku haystay labada qoys boo waxa Itoobiya dhan haystay labada qoys baa maanta Jigjiga annaga iskale Itoobiya inta kale kale walba gooryaanka caroosh kaga jira way iska soo xaaday حتى من لسه اللي لحاقة أو إصدافية إذا كان ديدي ما أنتوا واحد تاجنتهاي إن نمكي مرتدها إنه نبجرني أولي بواحد وشي نقل إلى ندعي أنت إيه أنا قرر مرتاح كل على كنيسة ضد نوقف إن مكتنا نسينا يا الله مقدميو وليه إلى الله مقدميو بلك أنت عصونا السعودة الولي قبليان بعد نكسر ماشي إذا ساكن أنا صومالي كم حنا من أسكله أمارة وحالين هي أدبا مع سنتين وهي عندنا بكل سنة مالك من لسه لها فطر كجرا وحالي وقف الدنيا هذا ميالي لهي ما أنت بينات هذاك المدة أرضنا اللي تقول بعدات تاخذها كسر طورتين بقول يا طبعا كسر النحاق يسير هو إنه أقنعي dhibaatadaad noo geysteen Itoobiya kale nooma geysan Amaara baa noo geystay Tigray maanta inaad tiraahdo Jigjiga annaga idinku sinmay waa abaalkano waxaan leeyahay awal baa sheegtay laba kil baan leenahay kilka Amaara iyo kilka shanaad waa beentin annaga iskale ila haddaad ku joogi weydaan iyo silsiraad haddaad ku joogi weydaan idinkoo masaakiina haddii aad ku joogi weydaan dulbanida Soomaalida iyo wadannimada iyo dadka caylkeeda haddaad nuguna noolaan weydaan ninka iyo naagtu way iska mari gabadha iyo wiilka way iska mari wallahi maxadaan meel kasku jira tagay odayaashii degdeg ha noogu yimaadaan hadda xiyaan awaaj ha ka hadlaan